isduwaha wasaaradda caafimaadka gobolka Togdheer Marwo Faadmo Cismaan oo xafiiskeeda waraysi gaar ah ku siinaysay telefishinka Ariel ayaa markii ugu horeysay waxay ka hadashay deegaano ka mid ah gobolka Togdheer isla markaasina uu ka dilaacay xanuunka jadeecada. deegaanadaasi oo ay sheegtay in qaar ka mid ah ay xanuunkaasi awgii ugu geeriyoodeen dad. geesta kale isduwaha hadalkeeda si wadatay ayaa ka warbixisay kormeer ay ku soo martay deegaanada dhanka bari ee gobolka Togdheer kaasi oo ay si faahfaahsan uga warantay xaaladda caafimaad ee ka jirta dhulkaasi. waxaan u baxayeen xaqa waqooyiga waxaan ka bilownay meesha la yiraahdo Qoyta marka Qoyta ayuun baan midig uga dhaqaaqnay xaqa bariga 2 maalmood waan soconaynay maalintii koowaad waxaan gaarnay meesha la yiraahdo Gebagebo oo MCH ka furan yahay inta ka sokaysa oo dhowr iyo 50 tuulo meelaha tuulooyinka yara waaweyn tuulooyin kala ku xiran sii soconay waxaan tagnay meesha la yiraahdo Kalbare waa meel runtii buuro dhexdood ku jirta laakiin waxa u yimaado oo ku xiran tuulooyin aad iyo aad u fara badan daryeel ama shaqo fara badan baa ka socota xanaanada hooyada caruurta raashinka talaalka wax walba way ka socdaan tuulooyin aad u fara badan oo ilaa dhowr iyo 20 way ku xiran yihiin wayna fiican tahay runtii waan ka soo baxnay oo dib aan u soo noqonay boodle baan hadana dib uga bilownay markaa waxaan raacaynay xagga buuraha waqooyiga hoostooda ayaan maraynay tuulooyin badan baan tagnay runtii dadku aad iyo aad abaarta raadkeeda aad uga muuqda waxa ka muuqda dactaro badan iyo dhib fara badan iyo yacni nafaqa darro badan iyo wax la'aan fara badan baa ka muuqata meelaha qaar baa biyuhu ka yar yihiin oo lahayn biyihii markay naga sii go'ayaan xoolo completely meel bad xoolo yar ku arkaysa intaad soconayseen deegaanada xanuunka ka jiro ma jirtaa cid ilaa hadda u dhimatay xanuunka way jireen meel 3 qof baa u dhintay baa lagu meel 4 qof baa u dhintay baa dadka dhimanaya waliba waxay u baadayeen dad waaweyn oo dadkii talaalka aan u baahnayn ee hore talaalku u seegay waaweyn hatta dumar uur laba naloo sheegay dumar umalaaba naloo sheegay marka wuu jira laakiin dhimasho xad dhaaf oo aad u badan ma jirto. isduwaha wasaaradda caafimaadka gobolka Togdheer waan weydiinay su'aal la xiriirisay waxa uga qorshaysan meelaha ay ku yaalaan MCH-yada aan shaqayn ayaa waxay ku jawaabtay walow dhinaca bariga tagtay ku yihiin haddana waxa jira kuwa dhisan oo dhismahoodu dhisay aan haddana gudahooda la shaqaynin arrinta maxay idinka qorshaysan dadkii wasaaradda waxa nooga qorshaysan kulli in laga wada tashado meelaha MCH-yadu isku dhow yihiin MCH kale in laga furo aan u baahnayn waxa laga yaabaa inay dib u dhacaan oo la hormariyo meelaha MCH-yadu aad uga fog yihiin ama ha dhisnaado ama yaanu dhisnaan in loogu talagalo in MCH loo furo meelaha baahidoodu ka taagan tahay MCH-yadina ka dhisan yihiin waa qorshe ayada loo sameeyo kulli wasiirka iyo DG iyo maamulka wasaaradda caafimaadku wixii la isla garto waxa u qorshaysan in horumar badan laga sameeyo caafimaadka biidmillaahi kariim. maxamed mataan gabalax maxamed mooto Ariel TV magaalada Burco.